ودقاليهانو فلسطينيين ودح wareegaya magaalooyin iyo deegaano saacado yar uun ka hor ku jiray gacanta gumaystaha Israa'iil. halka muuqaalkanna uu yahay kumanaan isugu jira rayid iyo dagaalyahano Israa'iiliyiin oo ka cararaya deegaanadan gacanta u galay Falastiiniyiinta duulaan aan loo meeldayin oo isugu jira ciir iyo dhul ahna duulaankii ugu weynaa abid ee lagu qaado Israa'iiliyiinta tan iyo dagaalkii Oktoobar ee dhacay 1973 Filanwaa iyo Kadis ayay ku noqotay Israa'iiliyiinta oo ilaa hadda garan la waxa ay ku sifeeyaan duulaankan saaka aroortii Kadiska looga dhigay. muuqaallo badan oo la baahiyey ayaa laga arki karaya kumanaan isugu jira rayid iyo ciidamo Israa'iiliyiin oo si wadar uga cararaya deegaanadoodii iyo guryahoodii halka dhanka kale ay gacanta ku dhigeen in ka badan 13 magaalo oo magaalooyinka ku hareeraysan marinka Gaza horeyna ay gacanta ugu hayeen gumaystaha Israa'iil. howlgalkan oo lagu magacdaray duufaankii Aqsa ayaa ku bilowday in ka badan 5,000 oo gantaal oo laga soo riday marinka go'doonsan ee Gaza. waxay ahaan jirtay arrin dabiici in marinkan laga soo rido gantaallo, laakiin arrinta Kadiska iyo fajaca ku noqotay Yahuudda ayaa ahayd markii ay arkeen boqolaal dagaalyahano Falastiiniyiin oo sidii roobkii uga soo degaya cirka kuna soo degaya deegaanadii ay gumaysanayeen ee ku hareeraysnaa marinka Gaza. ciidamadan ayaa gudaha u galay magaalooyinkan kadibna bilaabay inay isku fidiyaan. waxay qabsadeen tubaneeyo gawaadhi dagaal iyo sidoo kale ciidamo Israa'iiliyiin oo ay maxaabiis ahaan u kaxaysteen. sidoo kale waxaa markii ugu horeysay taariikhda dagaal foolka fool ay wadooyinka deegaanada ay haysato Israa'iil oo ku dhex maraya ciidamada iska caabinta Falastiin iyo Israa'iiliyiinta, taasi oo keentay in laga laayo Yahuudda boqolaal lana dhaawaco tiro intaasi ka badan. gantaalada ayaan ka kala istaagin oo sidii roobkii weli looga soo ridaya marinka Gaza. Israa'iiliyiinta ayaa bilaabay inay daadgureeyaan qalabkoodii dagaal ee u yaalay xeryaha deegaanadan gacanta u galay Falastiiniyiinta. qalabkan oo isugu jira diyaarado dagaal iyo saanad ciidan ayay warbaahintu tabisay iyagoo laga daadgureynayo xeryihii ay ku jireen cabsi laga qabo inay gacanta u galaan Falastiiniyiinta. gumaystaha Israa'iil oo aan weli ka soo waaqsan dagaalkan Kadiska ayaa bilaabay iska caabin iyo gantaallo oo ku garaacayo gudaha marinka Gaza. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka soo muuqday warbaahinta ayaa sheegay inay wajahayaan xaalad ka duwan xaaladihii hore ee ka dhici jiray gobolka. dagaalkanna uusan la mid ahayn dagaaladii hore ee dhex mari jiray Falastiiniyiinta iyo gumaystaha Israa'iil. weli dagaalku wuu